كدرن يحيى إن الدمتو يين الوقت قد ضيعدد وحاضرا إن الوقت قد ضيعدد لما وحويل وقت قد ضيعدد وقت قد هداد ضيعدد وحي كدغن تهي إلهي كو أبو ريبات كقودي آخر دادين واد ضيعدد بكلا دهي إيا كدغن تهي لكن هداد دمتد أدويدي وبات كقودي إلهي كما تقوين موتك أدويدو كقويا لكن وقت قد ضيعديسو إلهي آخر دادين كقوين يا يوغو مرنا إنكو وقتك ما أنت وان دلينا وأنا كلا ما أنت وقتك هل كان اسكو صور دافنا وقتك هل كان كسو دلا مرنا وحاننا أنا وقتك نبيه عنا صدايق لي عنيقا وماشى إلى هاي أولها حديث القدس يؤذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك يصب الدهر وأنا الدهر والأمر بيدي أقلب الليل والنهار بإلى حين إن آدم بإدبايا وصدي إن آدم إدبايا زمن كي أفلقادين يا با إلهي يدي زمن كمركي أفلقادين أمركو أنو قعنت إذا كجراي زمن ماها وحا وحبا بدلي أنيقا أيا حالات كبين هذا كاللسو درسا أيا أنيقا كان يبدل يا با إلهي يدي كان يبدل يا با إلهي يدي زمن كأفلقادين زمن كو إلهي زمن كو أيو والله dadka inta badan hadaad wareysato waqtigaas ay wada haystaan ilaa waqtigaasada ay galay waqtiga halka ay dhigay waqtiga iga jeestay reehbal waqtiga Allah ya maanta waa waqtigoogi waqtiga ay ka qabtay warma yiraahdaan يصب الدهر زمن كي أفلقادين إلهي بال زمن كو عايا زمن ماشي مجري أمركو حقا يقو كيمن يا إلهي وحي حالات إن لسه درسها يا أحوال إنه إيمان يسا أنا كان يا زمنكم ما كان بإلهي أنا كان يا أبار هذا يتماد إلهي بقدري برواقة هذا يدعون إلهي بقدري مال هذا يقبت إلهي بقدري ده هذا يعيرون إلهي بقدري ده هذا مال قبنا نقدان إلهي بمال قبنا ذا كدقي حالات هذيك اسكن نسبة وحي دباتك ولا صدر استعدوا اسكن نسبة لكن وحد وقاتا شر خير وحوكي من يا وحق إلهي marka marna dadku zamankay aflagaadeenayaan marna waxa ilayeen zamanka halkeen ku soo dilaa zamanka hadaad aflagaadeyso waxay ka dhigan tahay Allahi ku abuuray baad afka ku taagaysaa marka leedahay zamanka halkeen ku soo dhaafiya oo waqtiga halkeen ku soo qaadana marka leedahayna waxay ka dhigan tahay tharwadii Ilaahay ku siiyay ayaad cidla ku soo daadinaysaa cid ka qabanaysan ma haysatin Imam Hassan al-Basri Allah uu naxariistay baa oran jiray addoonka Ilaahay inuu u carooday waxa lagu gartaa waqtigiisa ka dayacma buu yiri hadaad aragto addoon waqtigiisu dayacan yahay mar walba dayac waa maxay waa markuu qofku ku jiro la yaani waa maxay waa markuu qofku ku dhex jiro shaqo aakhiradiisana aan waxba ka taraynin adduunyadiisana aan waxba ka taraynin shaqada la yaani baa la yiraahdaa qof 24 saac la yaani ku dhex jira hadaad aragto waxay ka dhigan tahay addoonka Ilaahay baa u caroonaya ka dhigan tahay وعلامات كان لغو غرتو انو الهي ادونك و عريسن yahay hadaad aragta maxay adoon waqtigiisu mar walba u dayacan yahay meel dayacan buu fadhiyaa dad dayacmay buu la socdaa wax dayacan buu waqtigiisu ku bixinaya dad xun buu la saaxiibaya meesha uu fadhiya ma garanay waxay tahay oo dayacan yahay markaas adoonka ilaahay uu khayr u la rabo ورالي وكيهين وحا لغو غرتابي علماء ولادين ميل وناكسن با إلهي مرور بوقتيسو ku bixiya hebel masaajid ku xilliga jooga hebel quraan buu akhrisanaya hebel dacwadii diintu ka shaqeynaya hebel xaram ku jira hebel aabihi hooyadii buu adeegaya hebel qaraabadiisii buu maanta wuxuu geeyay u soo adeegaya u xiriirinaya hebel madrasadu macallinka iyo ummadu cilmiga u dhiga hebel masaajidka xilliga laga helay maqaaxi laga ma helo hadaad aragto qof khayr mar walba ku mashquulsan waxay ka dhigan tahay qofka ilaahay ba khayr la doonaya ilaahay khayrka inoo dhibireeyo allah inoo macaaneeyo khayrka allah inoo macaaneeyo lidalika علماء الإسلام وقتي قرتن قيمهيس
caamir binu cabdilqays ayuu ahaa ninkaas. waa ninkii maalintuu dhimanayay ayuu ooyey baa lagu yidhi. markaasaa loo maleeyay inuu dhimashada ka baqaayo. markaasaa lagu yidhi maxaad la ooyeysaa? nin caabida oo magaalada dhan ee basro laydhaa caabidkeegaa lagu odhan jire, intaasoo jihaadna waad ka qayb gasho diinta halgankeega meel fiican baad ka gaadhee maxaad la ooyeysaa baa lagu yidhi. laba shayba lama ooyey buuhi horta iga qora, laakiin laba camal oo maanta iga go'aya oo dib dambe u arkayn baan la ooyayaa buu ku yidhi. labadaan la ooyeyn baan nii sheegi buu yidhi. cabsi aan aakhirada ka baqaayo lama ooyaayo, adduunyadan aan ka tegaya jacaylo aanu qabana lama ooyine, laakiin laba camal oo adduunka dusheeda aan ku qaban jiray ayaa haddaan maanta aan dhinta iga go'aysay buuhi. waa labadee? alsawmu fi sayfi waalqiyaamu fi shitaa. xilliga dhulku uu kulul yahay soonka aan soomi jiray iyo jiilaalka dhaxanta salaataleylka biyaha qabow aan ku weysaysanaya dhaxanta dhexdeeda aan ku tukanayay, labadaa camal baa iga go'ayso dib dambe aan u arkayno. labada aan la ooyey waa labadaas ogaada buu ku yidhi. wakhtigoogay ka faa'iidaysteen intay adduunka joogeen. الصوم في الصيف كليل dhulku markuu yahay soonka ayaka u macaana. shalayta wala laba cishaan imika Hargeysa nila jooga, maanta la saddex. maanta dhulku waa yar fiican yahay, laakiin labadan cisho hore u yar kulaa. laakiin annagu markaan Jabuuti ka imano Hargeysa kuleylkeegu annaga wuxuu noo xisaaban yahay qabow. dhareer Hargeysa waxa dhulku waa kuleyl maanta. markaasaan ku war kuleyl ma ahayna, kuleyl inuu ma darkin ilaahay ka magan galo. kuleyl Jabuuti wuu yaalaa iyo Boosaaso iyo Berbere. 32 buu ahaa ama 34 meelahaas. halkan markuu 34 36 uu yahay, Jabuuti waa 46. halkan markuu inniga cagacageenaya 30, Jabuuti waa 40 ama dhowr iyo 40 buu cagacageenaya. halkan markuu 37 gaadho, Jabuuti wuxuu gaadhaa 49 buu gaadhaa. haddana waa la soomaa. ninkaas caabidka zaahidka ahaa ee taabiciguna waxa uu leeyahay, maanta hadday naftu iga baxdo laba camal oo iga go'ay baan dib dambe u arkayn. labadaa dartood baan la ooyayaa. waa labadee? kulaylka aan xagaaga aan soomi jiray, asoomu fi sayf, iyo jiilaalka dhaxantu markay jirto salaata leylkaan u kici jireen tukan jireen baan dib dambe u arkayn buu yidhi. raggaas wakhtigay garteen qiimihiisa, deedna way ka faa'iidaysteen. ثابت البناني رحمه الله تلميذ wuxuu ahaa Anas ibn Malik. Anas ibn Malik baa ku oran jiray Duwayba, daabad yar baa tahay buu ku oran jiray Thaabitow. hadduu Nabi Maxamed ku arki lahaana wallahi waa ku jeclaan lahaa buu ku yidhi. edebtiisa iyo waraciisa iyo taqwadiisa iyo cibaada badnidiisa iyo fahmigiisa iyo siduu cilmiga uga reebaya saxaabada markuu arkay, wallaahi hadduu Nabi Maxamed ku arki lahaa waa ku jeclaan lahaa buu ku yidhi. maalintuu Thaabit al-Bunani uu dhiman doono ayaa inankiisibaa dul yimiday, deedna markaas u laqina tawxiidkii. see loogu laqina qofku markuu dhimanayo? dhex la odhan maayo, waa lagu dul dhawaaqa laa ilaaha ila allah, waa la maqashiinaya markaas suu markaa kaaga daba yidhaahdo. innaga zamankeennan nin sheekhaa yidhi dhakhtarada zamankan ilaahay ka barya inaad ku dhimataan buu yidhi. tawxiidkaad moodaaba in lagala dagaalamaya buu yidhi. waayo mar alle markuu qofku ay arkaan inuu sankaraad u yahay, halkanay wax ka gelinayaan oo halkanay ka daloolinayaan oo sankay wax ka gelinayaan, halkanay wax ka gelinayaan ilaa halkaas, xaan kale wax kaga dhaadhicinayaan, labadanay ka daloolinayaan. xaguu tawxiid ba ka haleeli? qasawadaa wada gashane. nin baa yidhi ilaahay ka magan galay buu, dhakhtarada zamanka inaad ku dhimataan ka alla barya buu yidhi. waa aafo, waa cuquuba buu yidhi runtii. Thaabit al-Bunani isaga oo sankaraadkiiyo inankiisu la dul yimiduu ku yidhi laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah. saasuu eegay. aabbo inankaygiiyow, wardigaygii aan akhrisan jiray ayaan ku mashquulsanahe hayga mashquulin buu ka yidhi. yani qur-aankii raatibka aanu lahaa maalin walba inaan akhristo
noloshooda tartiib saneediyaka maalin walba quraanka in bay ka akhrisanayeen afartii cishe mar khatimayeen qaar saddexdii cishe mar khatimayeen marka wurdigaygii aan akhrin jiray ee maalinlaha ahaa baan ku mashquulsanahay hayga mashquulin buu ku yidhi isagoo quraankiisii akhrisanaya naftu way ka dhacday baa la yidhi kullu mar'in yub'athu ala ma mata alayhi qof kastana maalinkii uu dhimanayay wixii uu ku dul dhintay ayuu qiyaamaha la soo bixi doonaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu quraan akhrinayay isagoo quraanka akhrinayay buu soo baxayaa hadduu sujuudsanaa markay naftu ay ka baxday isagoo sujuudsan buu soo baxayaa hadduu dikri samaynayay isagoo laa ilaaha illa allah buu soo baxayaa hadduu jihaad ku dhintay isagoo dhiiggii uu ka daadanayo dhiiggii weliba uu qoyan yahay ayuu soo bixi doonaa nin walba waxa uu ku dhintay markuu dhimanayay ayuu qiyaamaha la soo baxayaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam حال مركب ما أنت لا دمنا إنك إن شاء الله لا إله إلا الله لا دمنا وإن شاء الله هذا حال دمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لا إله إلا الله لكن النبي يقول أكثروا واربضية جددوا إيمانكم إيمانكم جديدية مركب الصحابة يقولون يا رسول الله إيمانك سيدنا لو جديدين يا مركب النبي يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من قول لا إله إلا الله هذا قولك لا إله إلا الله بديو كعل علي أبو رسولك يدي واحد عربك كجعل علي ساعة قلبك وقلي واحد دكت كبد سا مقل كذا قلبك وقلي واحد إيش الدايم الشدي سكبد سا قلبك يا دوبا وقلبك وقد دقي واحد أنت بدن أتكفكر تانا قلبك وقلي دونا قلبك لذلك dadkii hore quraankaas ay akhrin jireen bisha Ramadaan waxay uga faa'iideysanayeen bisha Ramadaan ay u arki jireen inay bisha dambe Ramadaan sanadka dambe aysan gaadhaynin wa noolaan doona maaha waxay ku xisaabtamayeen iyaku bari toolo weeyaan maalintan dhimanayay kun fi dunya ka'annaka gharib أو عابر السبيل نبي عليه الصلاة والسلام وكي ابن عمر قربها انتو نبي عبد الله بن عمر انتو قبتي أي نبي كويري كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل بنبي يا ابن عمر الدوية دوشي هذا واحد قوة قف غريبة غريب ومحي وقف قدل كيسي أنا جوجين كل كيسي ما جوج ما قال هذا مسافر بوكويا ضنتو ويمي دينو كذا ما يستمو يعني دك فكر مايو مال قبسة كفكر مايو أو عابر السبيل كنا معي وقف كهيل ودمر عليه مسافر كا ابن عمر هذا الكامر النبي كم مغلي وحو أورنجري نفتي سوكو أورنجري إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هداد قلبي ستد وبري هالسجن هداد وبري ستدنا قلبي هالسجن أنت العافمات كقبتنا وقف إذا أنت أند بكون أنت النوش هنا وقف إذا أنت أند من وماشى إنك يا أصحاب النبي وأنكو كلا دوّنه يكو حديث مرك النبي كم مغلان حديث كم مرايض وكلا أنت صور دجان أي مركان نوال بو حديث كأسكو إيجي ماكو عمل فلايا مسكو عمل فلا مايو حديث كان الله شيء ما يمدي مسمى من ماكو دغما مسكو ما دغمو آيات قرآن هذا النبي جانا كو صدقتو آيات أساس اسكو رجع جرين يكو مركب بريتو لها كو حساب تمينا ما أنت هذا يقول هذا كفايديسو